Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Bro ICT IT. Waa tii casharada aan wadnay maalintii u dambeysay. Waa tii aan idin sheegay su'aalo ayaa naga soo gaaraya ardayda qaar ka mid ah ama dhegeystayaasha qaar ka mid ah ayaa su'aalo naga soo gaaraya. Su'aalahaas ayaan hal mawduuc ka dhigi doonaa ayaan ku balannay. Laakiin markii aan fiiriyeyba su'aal laba su'aal oo ICT IT ayaan maanta ka bixi karin in aan sharaxaad kusoo koobno oo hal video aan ka dhigno. Su'aalaha kale waan usoo laaban doonaa oo kuwaas oo iska fudud oo waqti badan ma qaadanayso oo difference way yar yihiin. Laakiin ICT IT difference u dhexeeya ayaan maanta sharxi doonaa. Runtii ICT IT markii loo fiiriyo jaamacadaha waxay u isticmaalaan laba magac. waa ICT waxaa laga soo gaabiyey Information and Communication Technology oo micnaheedu yahay waxaa soo gelaya wixii communication oo telecommunication ka ah ayaa soo dhex gelaya. Halka Information Technology uu yahay guud ahaan teknolojiyada guud ahaan. Laakiin ICT waxa waaye iyadoo teknolojiyadii ah ayaa haddana meeshaas waxaa lagu sii qeexay communicationkii inuu ka mid yahay ama telecommunicationkii wixii codka ahaa dhammaan uu soo dhex gelayo. Marka waxaan dhihi karnaa waa isku mid, laakiin qaabka loo isticmaalo oo jaamacadaha ay u kala qaataan ayay ku xiran tahay. oo ICT waxa u dheer communicationkaas oo dheeraad u ah gooni ay u baranayaan oo teknolojiyada guud ahaan ay ka isku mid yihiin. Marka sidaas ayay kala duwan yihiin. IT waa Information Technology ayaa laga soo gaabiyey. Halkaana waa Information and Communication Technology. Marka saas daraaddeed halka ICT waxa u dheer telecommunicationka, halka Information Technology uu ka yahay guud ahaan teknolojiyada lagu baranayo. ICT waxaa soo hosgelaya waa tii aan idin sheegay telecommunicationka oo codka ah broadcasting waxaa soo hosgelayo mobile networking, waxaa soo hosgelaya computer networking. Halka Information Technology oo sidoo kale hosgelaya networkinga. Laakiin halkan waxaa usii dheer mobile iyo broadcasting oo gudbinta codka iyo sidoo kale emailada oo cod ahaan. Waxaan ka wadaa sidoo tusaale ahaan markaad joogtid maxaan ku dhahaa airport ama dowladda dhexdeeda markay warbixin iska gudbinayso. Telecommunicationka macnaha waxaa soo hosgelaya sidoo kale in cod meel ka baxayo yaa sameynaya codkaas waxaa sameynayo ICT-ga ayaa sameynayo. Sidoo kale waxaa soo hosgelayo ICT-ga waa security networking xagga codka iyo xagga broadcasting-ga ha noqoto. Labada dhinac waxaa maamulaya ICT-ga. Information gathering in ay soo koobaan wixii information ah si halkaas ay informationkaas security-ga ay u ilaaliyaan ICT-ga ku shaqle ee networking-ka ah. Marka media soo hosgelayo ICT-ga oo media kama marno maadaama aan nahnay wuxuu ka shaqeynayo wixii security networking iyo codkii iyo wixii dhan macnaha. Marka ICT sidoo kale waxaa soo hosgelaya hardware-ka wixii qalabka oo qalabyada xag computer ha noqoto, xag mobile ha noqoto, xag waxay hosgelayaan ICT-ga ay hosgelayaan. Marka saas daraaddeed waxyaalo badan mar haddii la dhaho hardware-kii datadiina way kusoo xigtaa. Marka datadana sidoo kale in networking-kaas data ahaan ay wixii barnaamijyada la sameeyey in ay control karaan ayaa ICT-ga
ama maaragtay marka waana samayn karaan oo maaragtay barnaamij si ay u controlaan maaragtay barnaamijkaas oo securitygaas oo maaragtay xag database iyo xag maaragtay ha noqoto program labadaba maaragtay way samayn karaan. Marka IT-ga aan usoo laabano, IT-ga waa information technology oo maaragtay guud ahaan ayaa lagu bartaa. Aniga labadaba waa soo bartay. Marka xagga information technology runtii waxaa moodaa maaragtay in uu balaaran yahay oo maaragtay aan lagu qeexin oo maaragtay xooga inta badan wuxuu saaraa maaragtay information maaragtay software developer ama maaragtay software engineering oo maaragtay ku haysta computer science taw ku haysta dhinacaas. Waa runtii markii aan maaragtay kulli waxay ka shaqeeyaan waa tiknoolajiyada maaragtay marka information technology waxa uu soo galayo information developer maaragtay ama information system-ka ayaa naftigiisa maaragtay markii information system ahaan hataa waa lagu shaqeyn karaa. Maintaining computer system ayaa maaragtay lagu bartaa sidoo kale IT-ga. Database-ka oo maaragtay sidoo kale maaragtay lagu barto networking oo soo isgalaya laakiin waxaa ka badan xagga markii ICT gooni maaragtay ayaa aad networking uu maaragtay ugu shaqeynaya sidoo kale information technology. Marka waxa ay ku kala duwan yihiin waxyaalaha maaragtay ICT-ga uu dheeryahay communication kasmani waxa kale waa isku mid runtii maaragtay laakiin jaamacadaha ayaa magaca ay kala qaataan oo maaragtay magacaas noocaas ayaa fiican oo maaragtay ama kan marka waxay ku xiran tahay markii ay jaamacadda qaadato ICT waa in wax badan ay maaragtay xagga communication-ka ay saartaa iyadoo maaragtay wixii information technology lagu baranayo haddana maaragtay dhinacaas ayay u dheertahay. Kan information technology waa maaragtay waa balaaran yahay waxyaalo badan ayaa lagu bartaa oo maaragtay maadooyin badan ayaa la soo galaya oo programming ayaa u badan oo C language ama C++ ama C# maxaan ku dhahaa software maaragtay web development lagu bartaa maaragtay oo website-yada sida loo sameeyo maaragtay oo web development-ga waa maado maaragtay balaaran waa tii aan dhahnay waan bilaabaynaa. Marka sidoo kale ICT-gana way ku jirtaa laakiin waxaa programming aad ka maaragtay loo saaraa information technology runtii halka maaragtay dhinacan administrator-ka maaragtay uu ku badan yahay in wax la maamulo ICT-ga sidoo kale maaragtay in ay la shaqeeyaan business-ka ayaa maaragtay information maaragtay ICT ku badan. Sidoo kale waxaa ku badan maaragtay xagga security-ga datada maaragtay in maaragtay aad loo maaragtay aad u saarayaan halkaas maaragtay xooga halka information technology uu maaragtay xoog u saarayo runtii programming-ga iyo maaragtay iyo data analyze iyo maaragtay waxyaalo maaragtay oo uu ICT-ga uu maaragtay ku dheeraanayn laakiin halkan ICT-ga IT-ga ay ku dheeraanayso. Markii waxaan dhihi karnaa ICT iyo IT waa isku mid laakiin midba wuxuu xooga saaraa in maaragtay waa tii aan sheegnay ICT-ga waxay xooga saaraan networking-ka security-ga datada maaragtay horumarinta sidoo kale maaragtay barnaamijyada applications-ka maaragtay mobile-ka telecommunication guud ahaan wixii data ah ayay xooga saaraan sidoo kale programming way sameeyaan laakiin information technology ayaa maaragtay maxaan ku dhahaa xooga waxay saaraan iyagana software developer ama software engineering oo maaragtay markasta wax in lasoo saaro oo maaragtay design la sameeyo oo maaragtay program lasoo sameeyo halka maaragtay IT-ga ayaa u badan. Marka web development-ka ka mid ah maaragtay wax kastoo technology labadaba technology ay ka shaqeeyaan markii barasho la maaragtay labada aniga waa soo bartay labadaba maaragtay teknolojiyada ayay maaragtay waa isku mid runtii laakiin midba waa sida hore u sheegay midba meel ayuu
ku dheereeya. Marka labada marka aad baranayso maaragtay waad dooran kartaa midka aad rabtid. Just magaca iyo meesha maaragtay maxaan ku dhahaa eh, mid kasta waxa uu kan kale maaragtay uu kusii maaragtay lagu sii barto oo maxaan ku dhahaa mid kasto maaragtay wuxuu ku dheer yahay ayaa waxaa jecesha haddii aad jeceshahay programming badan information technology haddii aad maamulka maaragtay datada iyo maaragtay shirkadda inaad la socotid oo maaragtay maxaan ku dhahaa security datada maaragtay networking-ka iyo maaragtay hardware-ka iyo waxyaalahaas dhan ICT-ga ayaa maaragtay dhinacaas ayaa xooga saaran halka maaragtay maxaan ku dhahaa information technology naftiisa uu xooga saaro xagga networking-ka laakiin waa laga badan yahay runtii. Marka xagga programming haddaa aad u jeceshahay in aad sidoo kale information technology waxaa maaragtay software engineering haddii la dhaho waxaa hoos maaragtay computer science ayaa sidoo kale maaragtay xoog waxay saaraan designinga maaragtay computer science-ka oo maaragtay maxaan ku dhahaa software engineering iyagana xooga ay saaraan halkaasna waa lagu haystaa. Marka kulli waa technology ayaa laga shaqeynaya laakiin mid kasta mid wuxuu ayuu maaragtay kusii dheer yahay ayaa DB loogu bartaa. Marka halkaas ayaan kusoo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.